Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada cashirkeenan oo ka hadli doona fiitamiinka la yidhaaho vitamin E-ga. Vitamin E-gu wuxuu ka mid yahay fat soluble vitaminska ama lipid soluble vitaminsku. Wuxuu ka mid yahay fitamiinada inta badan labadaba laga heli karo hadday noqoto xayawaanka iyo hadday noqoto dhirta labadaba. Walow uu aad ugu badan yahay xagga plantska ama dhirta. Waliba dhirtaas oo ah dhirta inta badan laga tuujiyo saliidaha. hadday noqoto geedka la yidhaaho sunflowerka ama gabaldayaha, hadday noqoto saliid saytuunka ama olive oilka, hadday noqoto sesame oilka ama saliidan la yidhaaho saliid macsarada. Marka saliidaha inta badan geedaha ka yimaada ama laga tuujiyo ayuu fitamiinkan la yidhaaho vitamin E-gu uu ku badan yahay. Fitamiinka la yidhaaho vitamin E-gu wuxuu ku jiraa fat soluble vitaminska asal halkan ka arkaysaanba. Magaciisana inta badan waxaa la yidhaha tocopherol. Marka alpha tocopherol iyo beta tocopherol. Tocopherolis baa la yidhahaa vitamin E-ga. Vitamin E-gu siduu ku yaraado ama deficiency uu ku dhacaa aad bay u adag tahay. Haddii uu dhacana inta badan cawaaqib xun baa inta badan ka dhasha. Waxaana aad looga helaa saliidaha saan hore u sheegay. Vitamin E-gu waxyaabo badan ayuu inoo qabtaa. Waxa ugu muhiimsan inuu yahay antioxidant. Markaan leeyahay antioxidant waxaan uga jeedaa antioxidant-ga waxaa la yidhaahaa dawo kasta ama fitamiin kasta oo jirka bini'aadamka ku yaraya oxidationka. Oxidationku waxa weeyaan gubashada. Markaan leeyahay oxidation meeshii waxa ka buuxa ka dhiganta oxygen. Oxygen-tuna waxay ka qayb qaadataa gubashada. Marka haddii oxidationka uu ku bato jirka, waxay ka dhiganta unugyadii jirka bini'aadamku way ololayaan ama way gubanayaan. Taasina waxay keentaa xanuuno, cimri degdeg iyo waxyaabaha kale la halmaala. Marka si aanay taasi u dhicin, fitamiino fara badan oo waxaa jira u shaqeeya antioxidant oo vitamin E-ga iyo vitamin C-ga iyo qaar ka mid ah vitamin P-gu ay ku jiraan. Marka vitamin E-gu waa antioxidant wuxuu yareynayaa gubashada cellkii uu yareynayaa cimrigii cellka ama unuga qofka bini'aadamkaana uu raajinaya. Vitamin E-gu haddii uu yaraado waxyaabaha dhasha waxaa ka mid ah ataxia. Ataxia waxaa la yidhaha gariirka khafiifka ah ama tusaale ahaan oo kale waxaan idhaahnaa tremorka ama gariir baynu dhahnaa ataxia. oo waxaa kaloo qofka bini'aadamka ku adkaanaya socodkii. Waxaa kaloo iman kara peripheral neuropathy oo noqonaya kabuubyo oo qofkii dareenkii ka tago. Waxaa kaloo imanaya retinopathy oo qofka indhihii inay xanuunaan, especially qaybta la yidhaha retinaha ee nuurka soo celisa. Waxaa kaloo iman kara difaaci jirka inuu hoos u dhaco. Waxaa kaloo imaada skeletal myopathy. Skeletal myopathy waxa weeyaan qofkii labadii lugood ama labadii gacmood baa bakti noqonaya. Deetan wuxuu noqonayaa myopathy haddaad maqashaan waxay ka dhiganta qofku markuu sakhraansan yahay oo kale lugihiisu jilaac bay noqdaan. Marka socodkiiba qofkii ku adkaanaya. Maxaa yeelay muruqyadii ku jiray lafaha ayaa daciif noqonaya. Marka deficiency-gaas inta badan kaasay keentaa. Waxaa loo isticmaalaa vitamin E-ga antioxidant. Antioxidant markaan leenahay macnaheedu waxay ka dhiganta oxidationkii ama gubashadii cellka ayay yareynaysaa. Waxaa kaloo inoo isticmaalaa gene expression oo geneskeena ama geneska bini'aadamku ka samaysan yahay wuu xoojiyaa. Waxaa kaloo sameeyaa cell signaling waxa la yidhaaho oo ah qof kasta unugiisa ama cellska jirkiisa waxa ku jira waxa la yidhaha receptors. Receptorska waxaynu ku sheegnay waa halka signalka bixiya. Qofku hadduu xanuunsanayo, haddii dawadu loo baahan yahay meelaha inay timaado. Marka receptorskaana aad buu ugu fiican yahay vitamin E-gu. Vitamin E-ga waxaynu isticmaalnaa haddii vitamin E deficiency imaado ama jirka bini'aadamka ku yaraado waynu siinaa. Waxaa kaloo inuu isticmaalnaa haddii qofka jirkiisu ama tusaale ahaan oo kale aad moodo qofka in unugyadiisu aad u gubanayaan oo xanuunadii uu leeyahay for example macaanka oo kale, da'diisii oo kale qofka ay aad u degdegayso oo kale, cimri degdeg badan qofka uu ku jiro. Haddaan isleena qofkaasi hurdo fiican ma helo. Waxyaabaha oxidationka dedejiya. Haddaan isleena qofkaasi obesity-giisu aad buu u sarreeyaa. Vitamin E-ga la siiyaa. Vitamin E-gu marka oxidationka wuu yareynayaa. Waxaa kaloo vitamin E-ga inuu isticmaalaa madhalaysnimada ama infertility-ga maadaama aad wax uga qabto madhalaysnimada ragga iyo dumarka labadaba oo dheecaamada kala duwan ee ragga iyo dumarka uu kordhinayo